السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيار شرفت الملك الدنيا كجوكتان كسو دواده يوتيوب جانالك سرت قروحدا iyo caafimaadka waa walaashin Zainab. maanta insha Allah waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa barnaamijkaas oo ku saabsan sidee ku noqon karaa qof yar oo qurux badan oo iskiin qurux badan oo maasha Allah oo jab ah oo macnaha quruxda qof walba jecel moogtahay maqaarka kaliya maaha jirkaaga midabkaaga adiga dhan qof healthy oo caafimaad qabo oo jab ah sidee ku noqon karaa insha Allah sidee uga maarmi karaa kareemada anti aging oo kaleeto oo aniga waxa da'deeda xitaa u yaraan kartaa oo like 10 sano 5 sano 10 sano oo qarsan karaa oo kale ayaan ka hadlaynaa boonti aad muhiim ah insha Allah biidhnillaahi karim haddii aad daneynaysid hadaba uga faa'iidaysid videoga dhammaystiran idinkoo mahadsan. Okay, intaan maan kasoo tagno runtii in badan waad aragteen ayadoo la leeyahay oo kareenkan marso waxaa kuna waa anti aging oo macna age-kaaga wuu yaraan doonaa wuu qurxin doonaa midabkaaga wuu qurxin doonaa intee ka dhacday dad ku dhahaaya bahasha hadaa marsatay isbuuc baad ku yaraanaysaa alaabahan la isku qasay harbalka ah waxyaabahaas dhan waa soo aragtay laakiin reality-ga markii laga hadlo waxa la iska mariyo maqaarka korkiisa sida hadday noqon lahayd kareemadii waxaas anti aging u badan iyo hadday noqon lahayd ba waxyaabaha kale oo harbalka guri lagu sameesto oo ay maxaa la dhihi jiray maqaarka la mariyo malab qasil ukun huruud waxaas oo dhan insha Allah si kasto aad maqaarkaaga u marisid waxyaabahaas isaga ah maqaarkaaga waxay kasoo ifbixaysaa boqolkiiba 10% عن 10% معنيه سيد لا شيغانا maaha wax issue ay qaban karto يعني wax macna weyn keenaysa maaha laakiin waxa soo dhan waxa ka muhiimsan saddex qodob oo hadda idin soo wada insha Allah biidhnillaahi karim hadii aad macnaha noloshaada ku dabaqadid oo aad macnaha nidaamka saddexda nidaamna aad raacid oo sameeysid waxaad arki doontaa adigoo qurux badnaaday midabkaaga qurux badnaaday age-kaaga yaraaday iyo maasha Allah tabaarak يعني لقما سو كوبي كر عافمادكاغو جب نقده اوكي صدح قضب waa maxay saddexaas qodob marka waxa waaye laazim waa inaan meel ku qortaa saddexdan qodob believe me waxa kala dhan kareen la marsado maxaa la jiri qasil huruud iyo kun iyo balaay timir la isku qaso waxaas dhan yani wax yar oo macna lahayn ay quruxdaada ku soo kordhinaysaa 10% size soo sheegay wax ishu qabanaysan ma aha yani wali waxyaabaha harbalka wax yar waa iska dhalaalisa laakiin wax adiga age-kaaga hoos u dhigay ma aha for example waxa arkaysaa gabar qurux badan oo marka la guursanayo yar oo qurux badan oo midabkeeda dhalaalayo oo kaal arag oo dhaxdeeda taaka ah yani markii hal cunug dhaxda yaraad gasho ama laba cunug ay ka soo baxaan hooyada iyada isla socdaan waxa leeyahay saaxiibtaa miya يعني سأكل فاحدة له وحي بورش ميا مرخ ميا wax kasta sida loogu dadalay gabadhii iyada ahayd waxay keenaysaa adoo gabar yar ah inaad age-kaaga ka weynaatid age-kaaga ka weyn inaad noqotid ma fahantay way dhacdaa waana boqolkiiba 80 gabdhaha Soomaaliyeed arimaha noocaas aad bay ugu dhacdaa marka haddii aad tahay qof noocaas oo facad aad ka weynaatid facad ka weyn aad noqotid haddii aad laf weyni u dhalatay iyo qolf weyni haddii qof age ku socda aad tahay waqtigii de macnaha rabo inuu age-kiisa yani wax ka dhimo oo u ekaado mar walba qof qurux badan oo da'diisu ay yar tahay qof walba jecel inuu yaraado qurux badnaan moogta age-kana waxa waaye wax la dagaaltama adduunka waa la dagaaltamaa marka fadlan saddexdan qodob meel ku qoro kana faa'iidayso insha Allah biidhnillaahi karim because waa qodoba runtii aad muhiim u ah quruxdaadii caafimaadkaaga iyo noloshaadana wax ka bedeli doonto haddaba warkii kooban ku jiro oo soo dhacna qodobada muhiimka ah hadal badan haan ma buuxshay okay qodobka koowaad number 1 qodobkooda waxa waaye walaashayda qaaliga walaalkayga qaali meel kasta adduunyada ka joogto waa inaad samaysataa waxyaabo ama cunto healthy diet ah cuntadaada horta qaabka ah wax u cuni jirtay number 1 waa inaad ka bedeshaa oo aad u bedel ka soo tagtaa from yani waxaan arkaa cunaa wixii arko laqa bris miya hilib miya kalluun miya malaay miya maxaa dhihi jiray soor miya caan miya wixii arko zalam aan siina inta ka soo tagtid
canjeelo iyo muuf iska waxaas dhinta kasoo tagtid waxaa laga rabaa nidaam healthy ah inaad samaysatid nidaamkaas maxaa kamid ah waxaa kamid ah inaad cuntadaada u bedeshid qaab healthy diet ah oo number 1 aad badsatid cuntada cagaarka ah aad badsatid qudaarta fruitka iyo waxaa seetid ah oo maxaa la dhihi jiray bariis basto sonkoro everything oo calories noqda hadday noqon lahayd sokorta hadday noqon lahayd bariiska hadday noqon lahayd basto bur wax kasta oo carbohydrate ka samaysan kulli wax alaal wixii carbohydrate isku bedel I mean wax alaal wixii hadhow isku bedelay calories ama hadhow noqonaya glucose isku bedelay inaad absolutely life-kaaga ka saartid number 1 sokorta waa inaad iska daysaaba iska tuur waxba ma tarto waxba noloshaada kuma soo kordhinayso number 2 waa inaad maxaa dhihi jiray bariiska iyo baasada iyo burka iyo wax alla wax cad ka samaysan oo dhan halkaas ka dhigtaa aad cuntaa burka madow haddii aad bur isticmaalaysid muufo karsanaysid canjeelo haddaad samaysanaysid haddii kaleetana maxaa la dhihi jiray bariiska oo kaleetana aad markaa cunaysidna ama wax yarka cuntaa bariiska cad iska yareysa baastada horta halkaas iska dhigtaa maxaa yeelay waa burcad bay kasi burcad oo dhan waa inaad iska dhaaftaa noloshaada ka saartaa marka saas aad cuntadaada u nadaamisid tan kalena cuntadaada waa inaad ka dhigtaa diet balance yacni cunto isku dheelitiran marka cunto cunaysid waa inay cuntada ka kooban tahay saxanka waa inuu ka kooban yahay qayb qudaarti ah portion macnaa hal dhinac qudaar ah hal dhinac bariis yar ah ama maxaa la dhihi jiray muufayr oo burka madow laga sameeya hal xab ama jab yar dhinacaan kaleeto waa inay tahay maxaa la dhihi jiray cagaarka iyo waxaaseed iyo greenka iyo fuulka iyo waxaas waa inay tahay I mean proteinkana waa muhiim oo hilib oo kale ama kalluunkina dhinac waa inaa soo dhigtaa saxankii marka 3 ama 4 qayb portion ah u sameynay oo saas isku jirto yacni waxaa la dhahaa markaas cuntadaas cunto isku dheelitirnaa la laakiin cuntada markii aad tiraahdo saxan bariisa cuna iskuma dheelitirno waxaa cunaysaa hal type of food hal nooc cunta cunaysaa waa hal nooc cunta يعني carbohydrate daaqaya tir markaas tani carbohydrate automatically marka jirkaaga gasho glucose isku bedelaysa automatically wuxuu isku bedelaysaa baruur خلاص wax jirkaaga nafac iyo faa'iido iyo fitamiinaad ama mineral aad helaysid haweeraatee ma jirto so waa very important qof u horeysa inaad cuntadaada ka dhigtid cunto oo healthy ah oo healthy diet ah labo ina uu noqdana diet balance inuu noqdo cunto isku dheelitiran waa fahanteena u maleena labaas marka waa very important inaad ku dadaashid marka taas waa step koowaad ee noloshaada iyo caafimaadkaaga iyo quruxdaada iyo age-kaaga iyo jabnimadaada aad kaga bedeli kartid waa kii koowaad bas amrunaya laba kale noo hartay okay labada kale maxaa waay number 2 waxa laga rabaa walaashayda qaaliga walaalkayga ee habar yar oo ayeeyo kulli Soomaali maxaa markasta dunida joogtaan number 2 waxa aad ku qurux banaan kartid caafimaadkaagana uga talin kartid waxa waaye in aad samaysid waxa la dhaho exercise waxaan ka wadaa yani jimicsi inaad samaysid oo jirkaaga aad dhaqdhaqaajisid markay u yartahayna maalintii 30 daqiiqo aad socotid waa hadaa tahay qof hooyo ah oo ama qof maxaa la dhihi jiray culus oo weyn oo kale laakiin haddii aad tahay qof dhalinyaro ah laazim inaad jimicsi samaysid maalintii 30 daqiiqo ama hal saac oo jimicsi ah inaad samaysid waa laga maarmaan maxaa yeelay jimicsiga number 1 wuxuu adkeenayaa murqahaaga wuxuu adkeenayaa maxaa la dhihi jiray wadnahaaga wuxuu adkeenayaa lafahaaga wuxuu adkeenayaa jirkaaga dhan buu adkeenayaa ma fahanti mid kale metabolismka jirkaaga waa dheefshiidka jirkaagana wuu kordhinayaayo isla markiiba wasaqda jirkaaga sunta iyo wixii dhan way ka baxaysaa number 3 waxa waaye wuxuu hoos u dhigayaa growth maxaa la dhihi jiray hormone wax la dhaho growth hormone-ka ayuu hoos u dhigayaa waa hormoonka qofka bini'aadamka cimriga ugu daray kan cimriga kordhiyo maaragtay oo dadka age-ka siiya kaas uu hoos u dhigaya oo la dagaaltamaya yani inuu age-ku kordho ayuu la dagaaltamaya maxaa ka fiican wax ka fiican mala so exercise waxa ku jira caafimaad aad u fara badan oo la soo koobi karin qofkii wuxuu dareemayaa firfircooni wuxuu dareemayaa yani healthy uu dareemayaa maasha Allah haddii socodka ay kugu adkaan jirto maalintii nus saac inaad socod waxaad arkaysaa adoo saacado ordaya oo aad kala jecleen maxaa yeelay exercise-ka ayaa ku siinaysa jirkaaga kala baxayo murqahaaga adkaanayo lafahaaga adkaanayo maxaa la dhihi jiray wadnahaaga kelyahaaga beerka kulli si fiican u shaqeynaya
dheefshiidkaaga si fiican u shaqeynaya lagama sheekeyn karo exerciseka micnihii caafimaadkiisa yani waa maasha allah tabaaraka so haddii aad rabtid inaad qurux badnaatid stepka kaleeto aan idiin sheega waa number 2gana waa exerciseka everyday exercise inaad samayso haddii kalena weekly 5 days exercise inaad samaysid waa aragteen walaasheena Firdawsi Gym Life age-keedana way noo sheegtay walaa really gabadhaas aniga run ahaantii waxay ila mid tahay dadka oo waxa waaye role modelka iyo ahwa macna aan ku daba daydo markay noqoto dhanka yani sida caafimaadkeeda iyo jirkeeda uga talinayso runtii yani dadka aan ku dareemo sideeda camal inaan noqdo waayo maxay loo qof runtii caafimaadkeeda aad uga taliso shakhsi ahaan aniga markaan aan dabeecadahaas ka arkay kartideeda iyo dadnimadeeda iyo sida iyadoo maanta hooyo oo 3 ciyaar dhashay oo maasha Allah tabaaraka ay u tahay qof adag oo caafimaadkeeda mar walba ka taliya waa amazing soo waad aragteen walaasheed si u qurux badan tahay age-keeda ma loo maleynayo maanta wallahi gabashan la san jirtay soo agstaga iyada waxa almooda isku facanay maasha Allah tabaaraka walaasheed cimrigaaga cimri Allah kugu daran leenahay quruxdaana qurux Allah kugu daro maasha Allah tabaaraka inta markii laga soo gudbo qodobka saddexaad aan rabo idiin sheego waxa waaye oo very important ahna waxa waaye maxaa sugo siinay waa soonkin waa soo dhawiyahay maasha Allah tabaaraka ka faa'iideysi wacan dadka aan soomi jirin oo soonka gas u siin jirin sida ma aragteen kubad la dheelaa camal oo u qarqarin jiray macne soonka waxay ka mid tahay waxyaabaha maasha Allah qofka bini aadamka jirkiisa qurxiya waana loo sheegay ilaahay quraankiisu noogu sheegay dadka adduunka hadda cilmi baaristan way ogaadeen caafimaad badan inuu ku jiro soonka in qofka yani unugyadiisii hore oo tacbaanka ahaa oo daalay oo dhintay inay ka saarto unugyo cusub qofka inuu helo sida qof hadda soo dhashay camal fresh inuu noqdo soonka ay ka dhigto soonka qofka waxay ka dhigtaa yaangi ka dhigtaa beautiful ka dhigtaa qofka healthy ku noqdaa soonka inaba caadi ma soo haddii aad soomi kartid isbuucii 2 maalin sida khamiista isniinta waa perfect waa maasha Allah waad ku qurux badnaani caafimaad baad ka heli ajir baad ka heli waxaad ka helaysaa wax walba maasha Allah baraka ka helaysaa wax kasta ka helaysaa soo cimri yar ka helaysaa quruxa ka helaysaa fircooni ka helaysaa soo haddii asbuuci 2 maalin soomi karto waa maasha Allah laakiin badanaa dadka oo aan non muslimka ama muslimka ahayn soonka iyaga waxay u yaqaaneen qofka inuusan cunto cunin ilaa inuu gaajoodo mahane ilaa qofku inuu cunto cunista ugu dambayso maqribka wixii ka dambeeya hal saac waxaan ka dambeeyay inay waxba la cunin subaxda dambana ilaa maxaa la jir duhurkii ama kadib galinka dambe la inay wax cunaan oo yani saacadaha ay soomnaanayaan ilaa 16 hours 14 hours inay waxba cunin isku bixis macna just waxa cabi karaan biyo waxa cabi karaan kafee sokor la'aan waxa cabi karaan shaah sokor la'aan wax kale ma cuni karaan biyo kali wax shaah kafee aan sokor lahayn beecabayaan ilaa mataqaanaa qof basi waa qofa 16 hours ka soo naado oo saas ku jooga ilaa duhurkii wixii ka dambeeya wax cuna dada ilaa iyo 14 hours qof basi waa adiga inaad saacado badan aad waxba cunin damoor aad waxba cunin damoor ugu jirkaagu maasha Allah qurux badnaanayo yaryaraanaysid perfect noqonaysid ma fahanti waxa hadhow cuntidna markay noqoto cunto yar oo nadiif ah waa waxaaga wax lagu daray yaa maasha Allah yaa heli karo kadibna exercise markaa ku dirtid dadku iska weydiinaa within 1 year gabadhan yaa waay wiilkan yaa waay ala dhii doona saddexdaas qodob aan idin soo sheegay waa very important hadda saddexdaas qodob samaysid abaay aboowe waad qurux badnaani simple is that caafimaadkaaga jabjab u noqoni age-kaaga wuu yaraani maasha Allah health baa noqoni jaranjarada orda ku koraysaa liftiga duu istaaga xitaa jaranjarada kan ugu hore ugu dambeeyo waxaa sarkaysa adoo dig ku kor aan kala jecleen because wadnahaaga si sax u shaqeynaya wadnahaaga ma xiiqa xooq ma dhahayo markii qashinka dharta laakiin xooq way ugu soo dhacday it happiness marka wax waaye be careful marka anyways maantana barnaamijkeeni caafimaadka iyo quruxda iyo waxa isugu jiray aan kaga hadleynay see ku noqon kartaa jabjab nacnaciina shukulaatina waa idin soo dhameystir waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin ka faa'iidaan waxaan rajeynayaa inaad share gareysaan share gareey fadlan barnaamijyada share gareey si aan igu noqoto dhiirigelin sidoo kaleetana si ay igu noqoto mar walba inaan wax soo dhigo aan idinka xiisa dhicin oo idin soo xiiso hadalladiina macaanka badan commentiyadiina aan soo koobi karin dadka badan oo mar walba igu soo darsanaya markaan arko oo kalniyada ay dhismayso oh maasha Allah maanta 100 kugu soo darso oh maanta 200 kugu soo darsatay waa farxaya
and I want inaan sii badiyo waxaa dareema lag dadku inay ka helayaan barnaamijyada otherwise waxa waa ka caajisaa so please share gareeya la wadaaga asxaabtiina wax alla waxaad rabtiin isoo weydiiya qurux miyaa caafimaad miyaa waa kana insha Allah waxa aad ku dhaamo walaashin qaaliga ah waxay meesha u joogtaa waa inay idin gacan qabato waxna idin soo kordhiso aadam ma sidii maanta markasta adduunka ka joogtaan waxaan idin leeyahay khayr iyo baraka idinku okay waa nimcada rabbi intaan video lamida aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaa idinkaga tegayaa salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh